kadib khudbadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ahayd maanta tii ugu kulaleed oo ra'iisul wasaaruhu jeediyo tan iyo markii loo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya bartamaha sanadkii 2022 ayaa waxaa soo baxaya amar kale oo dawladda Soomaaliya ay siisay ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda federaalka ee ku sugan Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Jubbaland amarkaas waxa uu yahay iyo sida uu dhacayo ayaan idin la wadaagi doonaa sidoo kale waxaan isdul taagi doonaa ilaa 8 qaybood ama qodob oo muhiim ah oo ku jirtay khudbadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre warka aan helayno wuxuu tilmaamayaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo mas'uuliyiinta kale ee ciidamada inay xiriir toos ah la sameeyeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa militariga Soomaaliya ee ku sugan Kismaayo iyo deegaanada kale ee maamulka Jubbaland waxaa lagu wargeliyay inay ka feejignaadaan wax kasta oo keeni kara isku dhac inay ka mid noqdaan qulqulutooyinka siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira inay u hoggaansamaan amarka madaxweynaha Jubbaland ee waqtigu ka dhamaaday Axmed Madoobe taasoo keeni karta in ciidamadaas ay qalad ku dhacaan ugu dambeynna ay dambi gali karaan sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu fariin digniin ah oo culus u diray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu sheegay haddii uu adeegsado ciidamada oo dagaal oo geliyo oo dhiig u daato inuu mari doono ciqaabta ugu adag oo ka dhalan karta tallaabooyinka oo qaaday Axmed Madoobe waxaa isdul taagaynaa markaana qodobo ku saabsan qaar ka mid ah kuwii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo khudbadiisa maanta ka jeediyay mid kastana waxa uu bixinayaa suurad ama calaamad iyo ujeedo gaar ah qodobka ugu horeeyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo maanta si kulul u hadlay waxa uu sheegay in Jubbaland cunaqabateen xoog leh Axmed Madoobe u saaray cunaqabateentaas oo isugu jirta mid dhaqaale oo aysan bulshadu haysanin dhaqaale ku filan meel kasta oo ka cunaqabateeyay iyo mid amni oo ah in Kismaayo isaga uu maamulo cid kale oo ku noolaan karta ama isaga ka soo horjeedo oo ku noolaan kartana aysan jirin iyo sidoo kale waxa uu sheegay cunaqabateen siyaasadeed inay saaran tahay cunaqabatooyinkaasi dhammaantood wuxuu sheegay inay deegaanka saameyn weyn ku yeelatay waxa tusaale u soo qaatay dhaqanka oo uu sheegay in markii la rabo in loo yeerto mar kalena aan loo yeeranin ama adan laga lahayn ciidamada ayuu sheegay in 22 sano ka hor askarigii dablaha ahaa ee Axmed Madoobe la socday maanta inuu wali yahay dable Axmed Madoobena uu diiday in ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee ka mid noqdaan ciidanka Jubbaland iyo dadka kale ee ku sugan Kismaayo iyo deegaanada maamulkaas sidoo kalena uu diiday in ciidamadaasi la dalacsiiyo darajooyin la siiyo iyo in ay ka mid noqdaan ciidanka xuquuqda ka qaata dawladda Soomaaliya qodobka kale ee muhiimka ah ee wasaaruhu ka hadlay waxa uu sheegay in madaxda dalka soo martay dhammaantood isbedeleen isagoo tusaale u soo qaatay madaxdii hogaamisay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo kuwa dawladda dhexe laakiin Axmed Madoobe ilaa hadda uu soo taagan yahay oo uusan isbedelin cid bedeshan aysan jirin haddana uu rabo inuu mar kale isku caana shubo waxaana gabagabadii uu soo qaatay gabay uu tiriyay Allah u naxariistay Abaan Maxamed Kaari ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa kale uu sheegay in dastuurka Jubbaland qodobkiisa 7aad inuu dhigayo madaxweynuhu inuu xilka qaban karo 2 jeer oo kaliya wixii ka badanna aysan sharci ahayn Axmed Madoobena sharci darro ay tahay doorashada hadda uu rabo inuu isku caana shubo deegaankaasina doorasho sharci uga qabtay aysan jirin mar kale ayuu dignin u diray madaxda Jubbaland ayuu sheegay inay saxiixeen dhammaan heshiisyadii quseeyay in dalkan ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah in hal guddi la dhiso oo ah guddi qaran in xisbiyo dalkan uu yeesho lana tartamo iyo dhammaan wixii heshiis ahaa oo ay goobjoog u ahayn ayuu sheegay inay diideen oo ay ka baxeen marka fulintiisii la gaaro oo ah shirkii hadda ugu dambeeyay iyo bilooyinkaaba si loo fulin lahaa waxa kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu dul taagay in ay u cadaatay madaxda dawladda Soomaaliya in hoggaanka Jubbaland ay ka shaqeynayaan ama ay rabaan inay fuliyaan ajando aan ahayn kii dadka iyo dalka Soomaaliyeed wax u tarayay oo ah ajanda shisheeye kaasoo keeni kara in dalka xaalad halis oo geliyo qorshe ayuu sheegay inuu damacsan yahay isaga iyo saaxiibadiis oo ah in la rido xukuumaddiisa dan qaran wuxuu kale uu sheegay in Axmed Madoobe iyo dad kale ay ku hoolan yihiin in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guud ahaan dawladda Soomaaliya ay ku fashiliyaan danaha qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale in la joojiyo qabashada doorasho qof iyo cod isagoo sheegay in la qabiileeyay dadkoodana ay ka dhaadhicinayaan in haddii doorasho qof iyo cod dalka laga qabto
siyaasadda Soomaaliya iyo hoggaankeeda ay ka suuli doonaan oo aysan ku guuleysan doonin sidoo kale waxa uu sheegay in madaxda Jubbaland inay ka baxeen dhammaan ballantii ay la galeen madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha wuxuu kaloo xusay in ay rabaan ballantii qaranka markay ka baxeen inay rabaan inay fuliyaan ballan kale oo dalka Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed dawladnimadooda iyo wadajirkooda halis ku ah qodobka ugu dambeeya waxa uu ahaa baaq oo u diray Axmed Madoobe oo ku yiri waa inaad ka joogtaa dhabaha aad qaaday wuxuu kaloo baaq u diray shacabka reer Jubbaland iyo ciidamada iyo guud ahaan waxgalka dadka ah ee halkaas ku nool oo sheegay in Jubbaland ay u baahan tahay badbaado in la shaqeeyaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo in lagu taageero si dalkan doorasho qof cod uga dhici lahayd oo ay gacmahooda ku cilbixi lahaayeen qofkay rabaan ku dooran lahaayeen sheekooyinkaas ayaa ugu waaweynaa khudbadda ra'iisul wasaaraha waxaana ka dambeeyay amarka oo ra'iisul wasaaraha isla goobtaas uu ku bixiyay oo ah in ciidamadu aysan ka mid noqon siyaasadda Axmed Madoobe hadii ciidanku oo siyaasad ku daraan oo ciqaab adag mari doono waxa ka go'an inay fuliyaan ajandayaashaas oo ugu horeeyo inay ka baxaan taladii qaran ay qaybta ka ahaayeen in hoggaanka Jubbaland uu isku caanashubo iyo in la isku dayo in la rido xukuumadda dan qaran hoggaanku wuxuu abuuray narrative halisa oo oranaya waxaa maqan deegaanada dalka qaar waxaan soo xusuustay sheekadii ahayd saddexdii nin ee kii indhaha lahaa indhoolaha iyo kii dhagaha lahaa iyo kii lugaha lahaa ee kii indhaha lahaa uu yidhi kii dhagaha lahaa uu yidhi shanqar baan maqlaa uuna dhagalayahay shanqar baan maqlaa buu leeyahy si uu dhagaa u helo si uu wax u maqlaso inuu dhaga leeyahay ma kama horreyn haddii deegaanadaas lagu daysanayo ama la rabo in la yidhaahdo waa la tabay haddii la rabo in la tabo waa in horta meeshooda la gaaro deegaanka la tabsan yahay ee bannaanka laga sheegay waa deegaan dadkiisu ay registered yihiin oo dhammaantood intii doorasho rabtay ay qoran yihiin ID cardna ay haystaan axsaab siyaasadeedna ay haystaan local governmentigiina oo dhanna ay doorteen oo ay dhisteen marka si aad u tabto oo waxaad sheegaysaa ay sax u noqoto horta meesha soo gaar haddii kale waxaad noqonaysaa ninkii dhagaha lahaa ee yidhi shanqar baan maqlay waxaa ku xigtay in la leeyahay reer hebelow haddii doorasho la qabto dalkaa laydinka qaadaya doorasho qof iyo codi micnaheedu waxaa weeye ka dareera dhulka waa laydinka qaxaynaya dhulka dad kalaa imaanaya dhulkiina laydinka qaadaya waxaan soo xusuustay sijaalkii ama doodii dhex martay nabiyullaahi muuse iyo fircoon oo fircoon qaala almalow min qowmi fircawna ina hada la saaxirun caliim qoladii madaxda ahayd ee fircoon saaxiibadiis ahayd muuse waxay ku yidhaahdeen kan waa sixir saaxiroole diib ah oo sixirnimadiisu uu aada u xeel dheer tahay wey waxay kusii dareen yuriidu an yukhrijakum min ardikum bisixri wuxuu rabaa dhulkiina inuu ka kaxeeyo asna maxaa loo soo diray inuu xoreeyo ummadda nabiyullaahi muuse inuu dadka xoreeyaa loo soo diray ayaguna waxay leeyihiin dhulkiina idinka qaato o idinka kaxeeyuu rabaa qisadu isu ekaa annagu waxaan rabnaa dadku inay xoroobaan oy codkooda ku codbixiyaan cidday rabaan cod siiyaan asna wuxuu leeyahay dalkiina la idinka kaxaynaya say isu qabanaysaa madaxda maamulkaasi waxay ka baxeen ballankii ay ilaahay iyo ummaddan la galeen waxay ka baxeen ballan aniga ay la galeen si gaara oo markhaatiyo leh aragtidaada qaybtoosee faalada noogu reeb maxaa kaaga baxay khudbadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ahayd maanta tii ugu kululeed uu ra-iisul wasaaruhu jeediyo tan iyo markii dalkan uu ka noqday ra-iisul wasaare